waxaa magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan lagu soo bandhigay buug lagu magac daray daroogada cagaaran. buuggan ayaa waxaa qoray Maxamed Xaaji Maxamuud Qudhac kaasoo wiil dhalinyaro ah oo wax ka barta dalka Suudaan, waxaana uu kaga hadlay dhibaatada qaadku ku hayo geyiga Soomaaliyeed. waxaana madashii buugga lagu soo bandhigayay goobjoog ka ahaa madaxa waxbarashada ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, madaxda ardayda iyo jaaliyadda. waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay qoraaga buugga daroogada cagaaran Maxamed Xaaji Qudhac isagoo ka warbixiyay waxyaalihii ku dhaliyay inuu buuggan qoro iyo muhiimadda uu bulshada u leeyahay buuggan. horta sababaha uu kalifay buuggan markaan arkay horta sida ummadda Soomaaliyeed aysan xog badan uga haynin qaadka iyo dhibaatooyinkiisa, waxay ugu darneed markii mid nin magaranaysa aqoon-yahan uu igu yidhi qaadku dhibaato ma laho, waa iska khudaare, wax dhibaato ah ku jirtay ma walahaba. Sheekh Mustafa oo ka hadlayay muxaadaro uu runtii kaga hadlayo qaadka iyo dhibaatooyinkiisa ayuu wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi waa mushkilad buu yidhi in ummadda Soomaaliyeed ay tahay yani ummadda ay ugu saameynta badan tahay dhibaatada ugu badan ee qaadku u geysto, isla markaana ay tahay ummadda ugu waxyaalaha maaragtay xogta ay ka hayaan ay aadka u yartahay. awoodaydu ay tahay waxa ii soo baxday bal inaan qalinkayga wax kaga bedeli karo, dhammaan aan ku gaadhsiin karo bal dadka Soomaaliyeed ee ay u qaadku aafeeyey. dhanka kale kasoo qaybgalayaashii madasha ayaa iyaguna si isku mid ah uga wada hadlay dhibaatada uu leeyahay qaadku iyo sidii loogu baahan yahay in loogu istaago sidii dalka looga joojin lahaa. kitaabkan inagu hadda u malayn maayo jalsadan inay fadhiyaan muqayiliin digniin la siinayo. adiga dowrka marka inaad akhriso ay kuu fadhidaan maxay tahay? horta ma aha aayadoo si kastaad u akhrisid inaad akhrisay ajar ka heli maysid, laakiin muhiimaddu waxaa weeye kitaabkani risaalo xambaarsan yahay. risaaladaa ma qaadi kartaa? waxa ugu weyn oo meesha yaalla waa saas, inaad intaad akhriso meesha kaga kacdid. waxaa ka muhiimsan kitaabkan intaad akhridid nin kastaa magaaluu ka yimi, gobol buu ka yimi, tuuruu tegi doonaa. awood ma u leedahay inaad hadday ugu yaraato wacyigelin ka samayn karto? caawa markii la isoo gaarsiiyey habeen dhaweyd ciwaanka buugga aadan ugu farxay, maxaa yeelay meelaha ugu badan ee dhibka naga haysto ayay ka mid tahay suntan cagaaran. joojinteeduna ismalihi maalin iyo habeenay hadda ku dhammaan doontaa oo waxay qaadanaysaa muddo inay istaagto, maxaa yeelay dadka aqoon-yahanka ah waxa ilaahay mahadiis horta alxamdulillahi rabbil caalamiin, nicmo kastoo ilaahay dadkiisa uu siiyo waa inay horta ka shukriyaan. inta wax barata ee qalin iyo buug qaada nisbada qaadka ka cunta ama sigaarka ka cabta markaan fiiriyay way yar tahay. ugu horeyn waxaan rabaa amaani bogaadin inaan u diro qoraaga buugga daroogada cagaaran Maxamed Xaaji Maxamuud Qudhac. aqoon-yahanku waa midka jawaab u heli kara bulshada mashaakisha iyo dhibaatada haysata, isla markaana xalka keeni kara. Maxamed Xaaji Maxamuud waxa uu tusaale u yahay nooca iyo qaabka ay tahay inaan ugu falgalno dhibaatooyinka haysta bulshadeena. ka madal aqoon wadaag ahaana aad baan ugu faraxsanahay inaanu helno aqoon-yahan maskax iyo maal geliyay inuu buug qoro. sidoo kale waxaan maaragtay xal ka maaragtay wax dhibaato haduu leeyahay horta xalkiisa ma fududa sidoo inoo la dhexgalay. waxaa ku qoran buugga lacag badan baa gashay, waxaan qabaa waxaa ka badan oo ina ka galay inta ilig ayna kaga maqan. abwaanada ayaa iyana habsugaameed ku cabiray mushkiladaha iyo dhibaatada uu bulshada u leeyahay qaadku. boqolaal qorsho wada qabiya qaado waadigaale, qoryo raam saquudkana yaree qaado waadigaale, qoys dumaya qayliyo huruuf qaado waadigaale, tala qaawan dumar wada qariban qaado waadigaale, jiko qaasha nadarkoo qayiran qaado waadigaale, qalbi guban sigaar lagu qanciyo qaado waadigaale, hurdo qarow ah soo jeed qamqama qaado waadigaale, iska qaado qaantana ha bixin qaado waadigaale. la dagaalanka qaadku waa arrin xil ka saaran yahay qof kasta oo Soomaali ah, siiba madaxda siyaasadda, culimada diinta, aqoon-yahanada iyo qof kasta oo waxgarada, si bulshada looga hor istaago dhibaatada ay dhex muquuranayaan. Soomaaliyana
waa wadamada ugu saameynta badan yahay qaadku iyadoo sanad kasta rubuc bilyan lacag ah ay ku baxdo qaadka dabadda kaga yimaada dalka. Axmed Maxamed British warbaahinta qaranka Khartoum Suudaan.